beeruhu waa qaar ka mid ah aasaaska nolosha aadanaha waxaana ay ku kala duwan yihiin abuurka dalagyada wax soo saarkooda iyadoo lagu saleynayo cimilada dhulka. gobolada Puntland ayaa inta badan waxa la sheegaa inay ku wanaagsan yihiin beerashada geedtimireedka waxaana jira ganacsato badan oo dhaqaalahooda u huray wax soo saarka beeraha. deegaanka Barookle oo ka tirsan degmada Carmo ee gobolka Bari ayaa wixii ka dambeeyay 1991 waxa laga hirgeliyay tacabka timirta iyo dalagyada kale ee geedmiroodka oo ay ka mid yihiin liinta, saytuunka, babayga, rumaanka iyo qudaarta kale ee kala gedisan. 600 oo beerood oo midiiba ku fadhido 500 oo mitir ayaa laga hirgeliyay deegaankaas. ceelbiyoodyo dherarkoodu yahay ilaa 8 mitir oo ay uga faa'iideystaan tamarta cadceedda ayaa u sahashay in beeralaydu ay ku guuleystaan hamigooda. sida hadda muuqata waxa iminka socda in geedka looga soo guro miraha timirta si xirfadaysan kadibna loo sameeyo dhul ay shaqaaluhu ku baakadayaan. ilaa 300 oo kiilo ayaa halkii beer maalintii ka soo go'a sida ay VOA u xaqiijiyeen beeralaydu. ganacsade Maxamed Yuusuf Dari oo ka mid ah qurba joogta Soomaaliyeed isla markaasna ku nool deegaanka Barookle muddo sanooyin ah ayaa VOA la kulantay xilli uu ku guda jiray hawl maalmeedkiisa waxaana uu ka waramayaa beeraha xilliyada kala duwan ee ay soo go'aan iyo waliba sida ay suuq geeyaan. 2 sano iyo bar qaarna 3 sano ayay ku dhashay timiraha qaarkood 3 sano marka waxay ku xiran tahay hadba sidii biyo hesho iyo xanaanada iyo wax la mid ah. aduu marba in weeye waxay ka marmarka qaarkood ilaa iyo 300 ku dhawaad baa la barsal galaya marmarka qaarkood maalintii. sidoo kale geedmiroodka liinta oo noocyo badan leh sida burtuqaalka, liin dhanaanta, bambeelmada ayaa ka mid ah geedmiroodyada ay beeralaydu ku guuleysteen wax soo saarkooda sida uu VOA u sharaxayo aqoonyahan Cali Maxamed Casayr oo ka mid ah qurba joogta beeraha ku leh deegaanka Barookle. hadda geedmiroodkiina waa baxay waa kan oranjadii waa tan hadda weli markaan aan goosanaya ma cimrigiisii ma dhamaystira weli waa yar yahay laakiin markii uu si dhamaystiran u soo baxo intaas aad buu weynaanayaa. runtii waa ciid wanaagsan tagaan ciideedu wax kasta ku baxay. gudoomiyaha beeralayda Barookle Caaqil Cali Caduur Nuux oo ka mid ahaa asaasayaashii beeraha Barookle ayaa sheegay inay ku guuleysteen hamigoodii ku wajahnaa inay wax beertaan waxana uu qurba joogta ugu baaqay in ay dalkooda maal gashadaan. maxaa wadaniga dibadda maanta laga cunaya iyo wax ka sii badan marka qurbaha waxaan ugu baaqayaa inay dalkooda ka soo qayb galaan oo maal gashadaan oo kaayis garab taagaan oo insha Allah wax soo saarka dalka ay nala ballaariyaan. 26 sano kadib ayaa Puntland waxa ka yagleelmay dhul beereedyo ay si madax bannaan u sameysteen ganacsato Soomaaliyeed iyo shakhsiyaad aqoon dheer u leh habka beerashada waxaana suurtagal noqday in dadku ay helaan dalagyo kala gedisan oo wax soo saarkoodu najaxay iyo inay u iibgeeyaan meelo ka baxsan Puntland. waxaana jira in deegaanka Barookle oo ah dhul beeraley ah ay waqtiyada fasaxa u dalxiis tagaan qaar ka mid ah qurba joogta iyo dadka deegaanka. Faadme Yaasiin Jaamac VOA Boosaaso.